قرط رئيسول سار روبلو عايجي لما فرماجو وشقي جري حبيبي الملايين بعد ما عاجو تعال بوح مالك هو يلا حبيبي مالك بوس قربوا عديد عاي ظاهروا وعس أول بفائدة حلقة بعيد عيني حلقة بقول فرحين عيني والله يا نكون ننتي نكون ننتوي حتى ما يعني قاسوا عيد سؤالي أو يدري عيد يدري مرحوم دلوي ما قف بعد ما مرقوا يا قف في دعوة صادرة اللي بحث دعوة الحرية وعسى أنا جاي ماله وليا وعسى أنا كل شيء سنة daahir waxa igu qosol badnaa ma taqaanaa male maqlaya shaaniyo ku waxa igu qosol su'aal mar waxa igu qosol badnaa ma taqaanaa mar ما غني كان نتكا كحنا أمرنا أحمد انت عندك التليفون قاعد وبحي انت دمش انت دمش دبوش التليفون وكان عليه وكان كل هذا هيت جوبي دايره ما مقشع ما مقشع دايره وبحي ما انت شيء نقف مقشع ما له حنا فيه وحلا قام مغلوب حنا فيه ملك مو حمسة ما دقي 60 ما أنت ضنوا كيو كجرا ما سيسي مو حمسة كسر مو حمسة وحكم لنا يا وافق الشيء ولا فوق الشيء ما تعال هذا المسكو مستر البانتا فوق الشيء نقشعتها تابل موكل عدين هذا فيري نيو ظاهر وأرت هذا ما المقبضنا وحل السود هذه البانتا فوق الشيء نشكته نيو روح سقجان كم حال نيو ظاهر ها اسكام سنة الغالي نيو ظاهر هذا كوسو قلي وحن اسك قيلنا وحن اسك هذا يوم سو قلنا هذا كوسو قلي نيو برنامج aan leenahay qolkaagan u baahanahay caawada markay tahay adiga markay tuug ku tahay ama markay ku tahay wala ishaga diyaar weey xuska jalaal ciidid caawa xuska jalaal ciidid ku waxaan soo galayaa markay kooda habeenimo ii tahay aniga aan soo galayaa bas intaasaan kugu imaadanay xuska jalaal ciidid qof kasta oo hawiya caawa diyaar gareeyo dibadeg baa dhacaya xuska jalaal ciidid ayaa lagu qabanayaa caawa qolkayga hal diyaar garoobo waka loogadana ii soo dir loogada ii soo tuura hadda ku soo dirayna waa ma santahay walaalkay haye alwar ma qadan karaa waa qadan kartaa abti horta waa ku salaamay daahir walaalaha Soomaaliyeed dhegeysanayaan waa salaamay salaan kadib waxaan rabaa meeshaan kelmadeen horta darsado horta ay diidaala u naxariisto maanta maalintiisii ilaa biriixta waa noo socon doontaa maaragtay xuskii awoowe allah ya raxma waxaan rabaa inaan ku darsado arrinkan qaatumo state dadka badanaa si qaldan wax u fahmaan aniga daahir saan u fahmay iyo dadka sidii wax u fahmeen baa kala duwan daahir wuxuu taagan yahay arin qaabkan u fahmay kaga sheekeynaya qaabkan ugu fahmay waxay tahay waa inaad horta noqotaa qof qable qofka waxa la yiraahdaa qofka inuu leader yahay in la hogaamiyo ma ahan macnihiisu inuu yahay qof wax hogaamin kara qof ma taqaana wuxuu asaga yeelo mooyaane wax asaga loogu yeerin karin walaalaheen fuqishini qaatumo state horta wax walba ay ka go'aan inna xukuma lahan daahirna xukuma lahan qof walba xukuma lahan laakiin walaalku dhiirigelin buu ku leeyahay inta markii laga soo tago dhalinyar waxaa jirta marka arrinkaas ka hadasha ama dagaal ha ka noqoto ama wax kale ha ka noqoto waxaan leenahay annagu nin cadowtinimo u qabaa ama beesha cadowtinimo u qabaa ma jirto nin walba ma taqaana arrinkaas ka hadlayna wanaageedu maraya maan xumaan ma ahan waxaa soo haray qodobka ma taqaana garaadkan horta garaadkan 17 sano ka hor wuxuu ahaa nin iska waalan ma fiyoobeen
ninkii way 17 sano kadib baa laascaanood ku soo laabtay wixii laascaanood baa 17 sano ku soo laabtay 17 sano dadkii laascaanood joogan waxay aaminsanay Soomaaliland magaraajaan galad cali biya waalana oo 17 sano dalka maqnaa mise dadkii laascaanood kuwa ku noolaa oo Soomaaliland aaminsan baa waalana 17 sano horta garaadka dadka caynaya ee qabiilkaas beesha u gafaya ee aflagaadeynaya ee meel uu soo fariisanaya waa horta qaldan waxaan daahir ka codsanayaa dadka mataqaanaa ereyga u garaadkaas yiri in lagu soo celiyo mar dambe qofka markuu qiimo loo yeelaa reerkaas waa beel sharaf leh waa beel goba mataqaanaa dadku waa isqabtaan carabi ilka isugu dhow laakiin garaadkaas waalan ay yiri 17 sano waxaan ka maqnaa magaaladeydii 17 sano magaalada aan ka maqnaana dadkii ku noolaana Soomaaliland 17 sano aaminsanayeen ee yiri 17 sano ninkaas garaadka ee waalnaa ee dadkiisa waalida ku tilmaamay yaan la dhihin ereygu afkiisa ka soo saaray ayaa la cayr buusan wax u dhibi karin walaana shakhsi kale wax u dhibi karin garaad xanuunsan weeye marka waxa ula jeeda ereygaas wax kala maahan ereygan dhowr jeer baan maqlay waxaan ka codsanayaa hadaa xitaa cambaareynaysan oo cambaareen dusha uga tuuraysaan inaan garaadka iyo wuxuu galo iyo meesha ka soo jeedo dhulbaantaa wadacaysaan wada aflagaadiisaan meesha doonta kala dhacdaan because garaadkaas hadalkiisa qiimo yeelanaya garaadka hadalkiisa wuxuu qiimo ku yeelanayaa ama ku dhaawacayaa reeraha kale hadalkiisa laakiin asaga hadalkiisa wuxuu ku qiimo beelayaa asagaas dilaya maanta haddaan dhaho sheeko haddaan ka sheekeeyo sheekadeeda iyo hadalka beri hore aan dhahay hadda isdaawacaan isma keenayso marka waxaan leeyahay garaadka waalan mataqaanaa waalida ku jira markii la wareysanayana maskaxdiisa aad moodid laba simakaarle laba GB anu waxaan dhihi lahaa hadalkiisa yaa la buunbuunin waa garaad mataqaanaa walaalkiisa iyo mataqaanaa aana kala garanayn ninka garan waaya ina cambaasho iyo adig asaga wax u dhexeeyo walaaltinimadiisa oo leeyahay waxaan dagaal kula jiray ina cambaasho iyo indho ninka dhahaya ninkaas hadalkiisa waxa laga soo qaadi karaa malaha waa nin dadkiisa la jihaatamaya marka waxaan leeyahay qof walba Soomaaliya halka iga dhageysanaya ID qiimaha uu leeyahay yaqaana